والعزة وبالفقار خلقنا لو نساء صلي على الحبيب waa daahfurka kulan ay isku cafinayaan dhaqanka siyaasiyiinta iyo guud ahaan dadyowga beelaha lixda shiidlo oo madmadow uu dhex yaallay muddooyinkan dambe kulankan iscafinta ah waxaa soo qabanqaabiyey xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ku matala lixda shiidlo waxaana soo xaadiray xildhibaanada lixda ah ee hirshabeelle dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wadatashi isturxaan bixin iyo isla lafaguridda madmadowgii jiray kadib kitaabka qur-aanka kariimka ayaa gacmaha loo geliyey dhaqanka iyo hoggaanka waxaana mid walba oo ka mida iyaga lagu dhaariyey inuu u hoggaansamayo danaha beelaha lixda shiidlo suldaanka guud ee beelaha lixda shiidlo ayaa qudhiisa gacanta loo geliyey 114 qur-aanka waxaana lagu dhaariyey inuu daacad u noqonayo danaha shiidlo dadkayga iyo dalkayga iyo diintayga inaan daacad ugu shaqeynaa ayaa ilaahay kitaabkiisa aan ku maraa abwaan janjeerow oo ka mid ah abwaanada beelaha lixda shiidlo ayaa suugaan kula hadlay waxgaradka siyaasiyiinta dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee lixda shiidlo maanta waxaa sharaf iyo wanaag ah dadka aan ka dhashay oo ah shiidlo weyn inay maanta inta ku soo kulanta iyadoo ka tishanaysa aayaheeda hashiin oon hadan hashiinayso waxaan jeclahay hashiiska maanta meesha lagu sheegay inuu noqdo mid hirigalo horta taas ilaahay ayaan ka codsanayaa haduu ilaahay raado in caloosha la sufuro dad walaalo ayaan nahay dad muslim ayaan nahay waxaan jeclahay in caloosha la sufuro oo saan subxii gadaal looma raaca la yiri saxaray ku hoosgeynay aan ka soo noqono nin kasta oo tanasulaad la sambo taas aan horta idinku baraarujinaya qomanaha la naga qoro loo qeybshay dunida haddana waan qoslaynaa misna qaafil ayaan nahay qalanka haday qadda ay dhamaato wax ma qori karaa qashinku buu la meeliya ana ka qopeen ana ka qaaya wacan ireeqan sax ayaan ahay qolo kuma hagaagto ee isqabashiid looy qaban qaabshan nabada wayna wada qoseysay halyeeyadii dalkaygo hogaamiyaasha dadkaygo hambalyan idin leeyahay hal ahaansha Soomaaliya hiil wada jir ah horumar noqon kareen hada waacid hashiya shiidlooy halyeeyadii dadkaygo hordhaan doorano hibi iyo hambaliyo salaam waan hibi iga godooma harsi weeye nabada hashiya hadal baa haboon hashiya hada waacid ee shiidlooy hashiya qaar ka mid ah nabadoonnadii ka soo qayb galay kulankan ayaa cabiray dareenkooda ku aadan heshiiskan la gaaray anigoo ah nabadoonka beesha Walamoy shirkan guud oo shiidlo dhan macal hoggaankeeda ay ka soo qayb galay oo koow ka yahay suldaan Axmed Rashiid oo ah lixda saldanada ee shiidlo xildhibaanada federaalka shiidlo xildhibaanada lixdii xildhibaan Hirshabeelle odayaalka dhaqanka waxgaradka dhalinyarada saxaafadda iyo ururka haweenka waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh heshiiskan oo heshiis guud oo shiidlo siyaasigeeda iyo waxgaradkeeda iyo nabadoonadooda ka soo qayb galay waxaan qalinka lagu wada duugay heshiis guudna oo ka dhacay lixda oday oo shiidlo alxamdulillah ilaahay ma hadaas iskale soo dhiriyay xildhibaanadii federaalka garabka ka jooga suldaankoodii ama suldaankaynii garabka ay ka joogaan lixdii Hirshabeelle nasiibku u yeeshtay 4 sano soo socoto annagana waxaan dhahnay haddii aan nahay odayaalkii guddoon wacan holkan waxaa isu yimid beelweynta shiidlo oo ka tashanaysa aayaheeda iyada oo hiigsanayso mustaqbalka waxa horteeda
iyo inay ka dhex baxdo mugdiyaal fara badan oo soo jiray iyo khilaafka yaryaraa ee dadka ku dhex jiray inay maanta shiidla ay ka dhex baxday shiidla maanta waxay u baxday wanaag iyo weji furfurnaan iyo isjacayl iyo kalgacaltooyo waxaan maanta halkan ka dhacay heshiis guud ay ummadda dhan u dhan tahay shiidla ay u dhan tahay khilaaf aska taagneen suldaankeeda uu dhex joogo shiidla waxaan u dirayaa hambaliyo meel kastay joogto waxaan leeyahay shiidla way heshiisay hambaliyo xildhibaan cabdulqaadir shuutaale oo ku hadlayey magaca xildhibaanada lixda shiidle ee hirshabeelle iyo xildhibaanad dahaba suusow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku matala hirshabeelle ayaa cabiraya dareenkooda waxaana ay jeedinayaan dardaaran midnimo. waxaan ku faraxsanahay in shiidla maanta ay midowdi gacmaha isqabsatay oo israacday waxaan rajeynaynaa in tafraaruq kale ilaahay naga haayo shiidla danteeda waxay ku jirtaa inay iyada gacanta isqabsato waxay ku jirtaa inay iskaashato maanta aad iyo aad u faraxsanahay tolkeyga oo hal gacan oo midoobe iridaadan ka bixino xamar aadin anagoo nabadan ku seexanayna maanta waxaan idin leeyahay wada jirka wax lagu noqon karaa kale wax lagu ma noqon karo lixda shiidlaas dagaalsan meelaha ka maqalnayna waa ceeb niyajabna way nagu tahay hadda dal iyo dibad way ku farxaan hadii idin arkaan bariga lixda shiidla odayaasha waa heshiis dileera heshiiskan ha noqdo heshiis dab oo wada jir iyo walaaltinimo hadafka aan leenahay meesha higsigeena waa gaareen haddaan wada jir aan nahay waxa idinku dardaarmaa ninka xildhibaanka ee kan xildhibaanka ahayn waa walaal iska warqabka odayga dhaqanka iska warqabka dhaxdiina laga warqabo nabadoonkeen weyn iyo suldaankeena Sheekh Axmed Rashiid in laga warqabo naftiisa warqabaas u baahan yahay beedka bariyaaska jira waagam kisbari xataa telefoon laga wacaabo xal xaq ku barda dilay sanadkiisa waa ku farxa laga shib laga farax ma jiro ninka nooga horeeya madax mudul meesha weynaa madax laga salaaxay madaxu weynaa asaga hadii anaga weynaysano asagan dadka waa weynayna laga hadii anaga hoos u dhigno dadkan hoos u dhigay dadka kale dadkooda way haastaan kulligeena ninka weynoo kala isku duubnaano. Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb ayaa faray guud ahaan dhaqanka iyo shiidlada inay iscafiyaan ما ولا أفرسي يا للظلمين تشيل اللح وما نتطلب معها لحنا بدون كحجان سازمو نبضون كحجان وركل ما جرو وحنا أول شيء خلوا تعالى ما وحكوين خلوبت شيد لا كوين يا خرالك على سوقري إنسان واي وحكوين متنمو إن عبيه تكنو لكن خلدا ماشي لو شاقو باش نبتر كذا سيدي الشلي يكون رقم بجرتي أنا وات أخادين أغلبية الأخادين تاسع على شنطة أودي هدي سجالة نبكي صعدوا شنطة قبيلة كلو على الرباعي اللي تراي سجالة بيها أنا لو ريجي ماشان ورا الوشاقي وركي كلهم ويبقى حقيقة فلور من باي حقوقي لا فلور من xildhibaan maxamed cumar caymooy oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala beelaha lixda shiidlo ayaa aqriyay ugu dambeyn war saxaafadeed beeshu ay ka soo saartay kulankan iscafinta ee jawhar ka dhacay. jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ujeedo heshiis u dhaxeeya dhaqanka beelaha lixda shiidlo kadib markii aan aragnay in laga maarmaan ay tahay ilaalinta beelaha lixda shiidlo kadib markii aan u adkaysan weynay khilaafka joogtada ah ee beelaha lixda shiidla hareeyay kadib markii aan aragnay in arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga ee beelweynta lixda shiidlo beel waliba inaan aayaheeda ka tashato ayaan go'aankeeda halkan ku soo gudbinaynaa sidaa darteed waxaan soo saarnay heshiiskan hoos ku qoran heshiiska maanta beelweynta shiidlo oo ugu weyn yahay uguna madaxsan yahay suldaanka saldanada beelaha lixda shiidlo suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo ninkan ah nabadoonada waaya araga guddigii nabadeenta mideynta shiidlo dhalinyarada aqoon-yahanada waxay haweenka xildhibaanadii oo qaranka oo federaalka xildhibaanadii oo nasiibka u yeeshay hirshabeelle ee u soo galay lixda odiyo shiidlo dhammaan maanta meesha waa loo eg dhan yahay waxayna isku afgarteen 6 qodob oo heshiis ah oo ay ku gaareen kuna shaqaysan lana rabo bahweynta beelaha lixda shiidlo
shanta qodob maxay tahay shanta qodob ee ay ku heshiiyeen beelweynta beelaha lixda shiidlo waxa ka mid ah number 1 laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii 11 2020 dhammaan masiirka go'aanka gaarista arrimaha beelaha lixda shiidlo waa in uu ku yimaado wada tashi u dhaxeeya malay maqlaa dhammaan arrimaha oo masiiriga ah waa in uu ku yimaado wada tashi arrimaha beelaha lixda shiidlo hoggaanka saldanada iyo dhaqanka beelaha lixda shiidlo ayuu wada tashi ayagoo wada tashanaya ayuu go'aamada u soo baxaya lambar 2 hoggaanka sare ee saldanada waa in aanay faraha la soo galin go'aanka gaarista beelaha dhexdooda tusaale beelaha beel ka mid ah yaa is haysata ama beelaha is haysta suldaanka inuusan faraha usan la soo galeynin ilaa beeshaasi iska xaliso ama beelaha kale oo macnaha oo shanta kale ilaa ay ka xaliyaan ayaday u qaas tahay beel waliba number 3 haddii uu yimaado khilaaf u dhaxeeya mid ka mid ah beelaha lixda shiidlo isla mar ahaantaasina ay xalka gaari waayaan dhexdooda beelaha beel ka mid ah ayaa waxaa soo dhexgalay khilaaf dhexdoodana way isxali waayeen waxaa go'aan ka gaaraya shanta beelood oo kale beelaha ka mid ah ayaa isqabatay dhexdeeda tusaale ahaan ciisa isqabtay wuu iskhilaafay wuu isxali waayey hadduu isxali waayey waxaa dhexgalaya oo ku baxaya shanta beelood oo kale si ay u xaliyaan arrintaas lambarka 4 haddii ay ku qanci waayaan macnaha shantii beelood oo kale inta dhexgashay ayada way isxali waysay shantii beelooda gashay haddana way xali waayeen haddii ay ku qanci waayaan sulxa oo ay soo saareen hoggaanka dhaqanka beelaha shanta kale oo shiidlo ayay ku qanci waayeen beeshii waxay shanta beel ee kale ay xeer dhaqameed ahaan ku xeeri doonaan xeerka noo degana muxuu yahay way casaari karaan waxay dhihi karaan intaas ama macnaha inta aad ka soo heshiinaysid maadaama heshiis adigana heshiin weysay ana kana heshiiskeena diiday ma dhax imaan kartid oo kale inta shiidlo ilaa aad ka soo heshiisid ama waxaas iyo waxaas lagu casaariyo laga rabaa waa dhaqankii soo jiray in ay shanta beelood ay kala go'aanka ay gaarto ee ay ku casaarto ay ku ay beeshaasi ay ku qabato ee ay tiraado ilaa adiga xal aad kama dambeyn ah maadaama adiga isxali waysi shantii beelood ku xali waayeen ilaa nidaam lisaka raaco jiha aad u yeelato ma soo dhaxgalaysid shanta beelood oo kale waana dhaqan jiray Soomaa lambarka 5 ugu dambeeya heshiiskan wuxuu dhaqan galayaa markii ay si wada jir ah u saxiixaan dhammaan nabadoonada odayaasha waxgaradka ee beelaha lixda shiidlo isla mar ahaantaana uu saxiixo suldaanka saldanada beelaha lixda shiidlo suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shacib wabillahi tawfiiq waana la isku cafiyay meeshan maanta waxa isugu yimid suldaankii nabadoonadii xildhibaanadii Hirshabeelle xildhibaanadii federaalka ee ku matalayay bahweyntan shiidlo waxaana la isku afgartay laga bilaabo maanta in khilaaf kale iyo mugmugdi iyo madmadow uusan soo dhexgelin alla naga haayo dhammaan qalinka lagu duway kitaaba la maray waxaanu rajaynayaa wax alla wixii hore u soo dhacay waa soo dhaceen wixii oo khilaaf inuu inta alla nooga ekeeyo xilligan laga bilaawdana si wada jir ah saan ma aha walaalaysan ma aha isaan ujeedadu ay ahayd isaan wax yeelno isaan wax u qabsano inuu warkeen u ahaado wabillahi tawfiiq waa markii ugu horeysay oo kulan noocan oo kala ay heshiidla ku yeelato Jowhar kaasoo ay kitaabada gacmaha isugu gelinayaan si dhaxdooda looga saaro
khilaaf muddo soo socday waxaana kulanka ugu dambayn uu ku soo dhammaaday iscafin iyo duco. الجنة يعد بك وسط من النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام اللهم أزم عنا شر المفسد عنا شر الحاسد اللهم ادف بعباده المؤمن شر العزيز حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي وعذرك شيء إله بريء بحي إلهي ونكي لا لاب لخدمك وجرتني إله موت الفجي إلهي ونكي لا لاب وضع قال والله وهشيدي وهشيدي وبين إلهي وبريك تبنكي فتنة وضع إله ونك نحبح إلهي ونكي فتنة وضع إله ونك بحي إلهي ونكي شيد لا تفارق هذا خضرات وسوخاتي إله ونك بحي إله شيد الشيد إله وكدك إله شيد سدح تلويني سدح في دالوي وإزراع إله وكدك